بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالين حدا إلهي حتى خير كذا هاي نسيه أحد يالك الله وبدنا عارف ماذي عمر دير عبادة تامة يعلم السوق هاي نسيه آمين. عشر كمان أنت حرم تحرور ومسكحة سير الله قد اسمه أما سير الله قد تقفك مسكحة قد اسمه ويري بني آدم قال يا مسلم ويري قفك مسكحة قد اسمه شيء كير بان شيء بدونه وتصالح في عين نفسي نسمه in Soomaaliya dhowr iyo 6 jira Finland wuxuu yimi sagaashameeyada horaanteedii waxbuu kusoo bartay wadankii Finland waxbuu ku bartay ururo ka shaqeeya marka wuxuu ka xanaaqsan yahay dhibaatada ka dhacaysa Lebanon iyo Falastiin saraakiishii bay muqmaada dadkii bay gumaadayaan waa 2024 bishii 9aad 8 shaloo kale saraakiil badan oo Libnaaniyiin lagu dilay Beirut agagaarkeeda marka wuxuu leeyahay nimankii odayaasha way guuleysteen dawaka waxaan ku yiri guushiisa maaha imika iyaga bay uga daran tahay reer galbeedka uga daran tahay waayo sharciga ay dhigteen ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee loo yaqaano Geneva heshiiska Geneva dagaalka xitaa waddan ay ku jira in qof aan qori sidan oo dagaal xagga hore ku jirin meesha dagaal ka dagaalamayo la toogto madfac lagu tuuro dagaal xagga se laga tuuro waa ceeb waana dambi waana fulaynimo waa argagixisnimo marka iyagay ku soo hoos noqonaysaa reer galbeedka inay ku farxaan intay madaafiic guriga meel dad joogaan ku tuuraan ay farxaan waa argagixisnimo talabaad qanac waxaan ku uri haddii ay falastiiniyiintu sidoo kale u fikiraan ama Libnaaniyiintu sidoo kale u fikiraan beri hore isdiibi lahaa yani waxaan arkay nin aan isdiibayo waa nin carruuro waaweyn leh waa nin wax soo bartay cilmi la-aan iyo waayo-aragnimo la-aan iyo da' la-aanna ma hayso oona maskaxdaanu ka dhisnayn taasi waa tukoa talabaad kubadda cagta barigaan yaraa kubaddan jeclaa macallin fiican maan helin anaa isbaray dadka kaga waaweyn eegay isticmaalay waxa maskaxdayda si aan u dhaafi lahaa qofka sidaan goolka u dhalin lahaa sidaan hadafkayga u gaari lahaa saddexaadna waxay tahay maya intaanan saddexaad gaadhin kubadda cagta waa gool baa lagu yeelanayaa laba lagaa dhalinayaa saddex lagaa dhalinayaa 20 daqiiqo hadhay ama 10 daqiiqo hadhay 10 daqiiqo waa waqti weyn maskaxdayda aniga waxay ku dhisan tahay kubadda aan ku soo bartay cidina imay sheegin hadhow kale ayaanu arkay markaan bugaagta akhriyay inay qofka maskaxda ka dhisan saa u fikiro 10 daqiiqo inaan saddexda gool lagu leeyahay aan keeni karo aan dhaafin karo abadayga ka maskaxdayda waxay ku talagalaysaa inay 10 daqiiqada sida ugu fiican aan u ciyaaro si aan goolasha u keeno marnaba aan u isma dhiganay marnaba aan fursanay orodka dheer qofka orodka dheer oo taa waa yaqaanaa marathon ka soo qaad marathonka waa 42 kilomitir 40 kilomitir baa kama soo qaad 42 kilomitir tobanka ugu horeeya qof kasta oo tababaran uu dardar buu leeyahay 20ka marka la gaaro shaki ku galaya waa daashi iska joog maskaxda qof ka dhaxlaya iska joog marka la ciyaar iyadoo doonta maanta way kulushahay raashin maad cunin qofka maskaxda ka dhisan waxa soo dhan buu aaminsiinaya qofka maskaxda ka dhisan waxa soo dhan ayuu aaminsiinaya marka maskaxda ka dhisan waa qofka maskaxdiisa u taliya ee aan maqan jirkaagu daalay lugtaagu daalantay dhaawac yar baa kugu soo baxaya marka 20 kilomitir ka bacdi aad ordo 30 raadka daalka wixii hore ma kugu soo baxay laakiin waa inaad istirto waa inaad kartidaada ku sii socoto qofka marka maskaxda ka dhisan waa qofkaas markay dhibaato ku qabsato waa inaad ka sii badiso oo aanad marnaba fadhiisanba oo aanad isweydiin tusaale kale kubadda waan dhaafay ninkan kii labaad kii difaacii baa qabtay kubaddii waxa isaga iga qaaday inaan joogsado halka ku harmaa waa inaan isku dayo inaan kubadda soo qaado inay talabaad ficilkayga labaad ay wax ku keento
أنا مركي ورا ولا قاعد مركنا ولا قاعد يا ماها وأنا لعبتي ورا ويتكتي تصوص أنا ما قرأي وحين قرنيسو لكن يمكن واحد شوبه كبدل مكتيد كتشرت sida aan u wadi lahaa aan ka fikiro halkaa joogo taas weeye maskaxda haddaan kuu soo gooba waa taas weeye qofka maskaxda ka dhisan ma eegayo khasaarihii shalay ahaa ama sanadkii hore ama 10 sano ka hore ahaa gabadhii hore kusoo khasaaray ma eegayo wuxuu isweydiinayaa soo khasaare maaha anaa dhibaatada keeni maaha inanta may anaa doortay qof aan yaqaanin soo maaha imika sidee baan tanaan hayo ama tanaan shukaansanayo sidee baan uga dhigaa mid midii qalanta taas weeye yani maskaxda ka dhisnaantu meel kastay kaa gelaysa waa guurkii waa dhaqaalihii waa waxbarashadii waa kubaddii waa orodkii waa siyaasaddii waa waxbarashadii waxii oo dhan ay taabaysa maskaxda waa cajiib marka waa inuu barno sida loo dhiso soo gaabiyo kugu celiyo qofka maskaxda ka dhisan waa qofka aan isweydiinayn khasaarihii uu soo galay shalay haddii khasaarihii shalay aan soo galay aan ka fikiro ama sanadkii hore ama 2 sano ka hor aan ka fikiro tusaale kale 3 sano ka hor bay gabadhii diiday aan doonayay jeclaad jeclaa qurux badan oo qurux saan ugu haysto qurux badnayd oo maskaxda sawirkii ku jira ah inaan gabadhaas xaaskayga noqonayso nolol wanaagsan ku noolaanayso ay igu tiri may sheekh ma doonayo in kala kaxee 2 saacaad binaadam baad inaad saacad ama 4 saacaad ka fikirto inaad ku tagto waay tani marka aan shukaansanayo waa inaan taa xoogga saaro aanan odhan tan miyay ku diidaysaa arbay ku diida haddaad saa tiraahdo caynkana waaba alaabtii la odhan jiray waxaana loo dhigi jiray buugga uulada mise labadana lagu dhigi jiray cigaal shiidaan cod hortii jabay maskaxda lagaa dhisa waa taas inaanad ka fikirin wixii khasaarihii tegay waxa soo socdana aanad ka fikirin ee aad ka fikirto waxaa imika jooga lugahaygu halka imika taagan yihiin maxaan imika qalinkan ku hayo qoraalkan imika doonaya inaan qoro gabadhan imika shukaansanayaa si fiican u shukaansado talada imikaan hayaan siyaasadda si fiican uga soo baxo orodka imikaan ku jiro kilomitarka aan ka fikiro imikada aanan ka fikirin ka soo socda iyo kii hore taas weeye qofka maskaxda ka dhisayay sidee baa haddaba lagu gaadhaa waan ku siiyey in yaroo ka mid a sida lagu gaadhana tababar bay u baahan tahay in aad isweydiiso war adduunka anigu maxaan u joogaa adduunka war anigu adduunka maxaan u joogaa adduunka waxaad u joogtaa aduu ilaahay ku yidhi inaad aniga iyo caabudo insaan dadka iyo jinkuba inay aniga iyo caabudaan waxaa laaliya waxa kaloo dhan waa gacan labaad laakiin ta ugu horreysay hamigaaga waa taa noqoto adduunka haddana waxaa kaloo ilaahay kuu sheegay haddii aanad waayo-aragnimada ku qaadan inaad ayaama joogayso cayiman yihiin xitaa dad 200 joogto 300 joogto ay cayiman yihiin ay ayaama tirsan yihiin oo aad odhanayso adduunku wuu dheer waqtigu wuu dheereeya biniaadamka iyo muslimka waxaa isku raacay inuu waqtigu dheereeyo markaan taa ogahay wixii aan helayaana waan helayaa wixii aanan helayna waan helayaa laakiin aniga waxaa layga baahan yahay inaan ficil sameeyo aanan isdhigan kubadda si fiican u ciyaaro orodka si fiican u ordo qoraalka si fiican u qoro akhriska si fiican u akhriyo shukaansiga gabadha si fiican u shukaansado oo aan anigu qaybteedii ka soo baxo wixii kalena waxaan anigu kari kara aan sameeyo wixii kale anigu aan awood u lahayn aan ilaahay u daayo taasaa maskaxda lagu dhismaa laakiin taan ka fikiro shalay daraadii iyo sanadkii hore iyo waxa soo socda dee maantaan khasaariyey saacaddan aan khasaariyey saacaddan oo taan haysto wixii hore inay tegayna ma soo noqonayaan waxa soo socdana ma la garanayo inay gaadhayo iyo siday noqonaysaba xitaa marka maskaxda qofka ka dhisan waxaa lagu kartaa waa qof xayiya oo jooga oo wax allaaliya wax qabtaa wax kastuu qabtaa hami iyo ujeeddo iyo sabab bay leeyihiin waxaanu ogayay mar kasta inuu maanta yaro khasaarayo laakiin beritooriisaa dambe uu badinayo sanad kasta taasaa inaga maqan maanta waynu isdhiibnay qof kasta uu isdhiibay gaalaa wax laga sugayaa yuhuud baa wax laga sugayaa war waddankeena qaniya aqoonsi uma baahnin haddaynu maskaxda ka dhisannahay waa taas